السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته daawadayaal waxaa kusoo dhawaataan baahiye janaal oo idiin soo gudbin doona taariikhda fanaaniinta iyo kuwa fanka xoog ku soo galay. Fadlan haddii ku cusub tahay janaalka subscribe saar si ay kuu soo gaaraan wax walba cusub oo ku saabsan fanaaniinta. Mahadsanid. Maanta waxaa ka hadli doonaa taariikhda King Arash. King Arash waa nin laga yaaban yahay, fanka xataa wuxuu ku soo galay qaab xoog ayuu ku soo galay. waa nin laga yaaban yahay. Magaciisa King Arash maaha, magaciisa dhabta ah waxaa la yiraahdaa Carafaad Axmed Saadiq ayaa la yiraahdaa. Wuxuu ka mid yahay dadka fanka xoog ku soo galeen ayuu ka mid yahay. Heesta oo kooda hor soo qaada xataa waxaa leh nin dhahaayo Cabdiqaadir Sanka oo aqaantiin. Heesta kooda hor oo soo qaaday waxaa leh Cabdiqaadir Sanka ayaa la taqaaniin. Ninkaas waa fanaan Soomaaliyeed waaye. ninka King Arash laayo fanka wuxuu ku jiraa 10 sano ayuu ku jiraa. wuxuuna isku sheegayeen in cidiisa dhan ay yihiin dad fanaaniin hore ahaa jireen ma ahan. ninkaas ujeedaan qaabkiisa iyo fanka qaabka uu soo galay kuwa badan ayaa idiin soo gudbin doonaa oo noocan camal hadaa magacooda maqashiin oo runta yaabi doontaan. fadlan haddii janaalku cusubtiin subscribe saare si ay idiin soo gaaraan wax walba cusub oo fanaan Soomaali oo dhan ku saabsan. mahadsanidin.